هذا ملا عنق طيريستا أو أنت صاب بلاد هوست هذا كواف دومن سومالي إن نهاية قلقينا نجاش زل على النبي سومالي إن نهاية قلقينا وقدر تعال كوستيزا يجي دوست هذا طلبي علي إلقى الدنيا النوق بصدي مالو كده عين من شرتو أنت هليل مرحومة هو يد طبعا عاوة قرعا أميرة marka ay isha ku dhufato sawirka ninkii ay ku tuhmaysay gabadheeda oo iftiinka ka burqanaya lagu dhaashan karo qosolkiisana uu dhaafay midka caadiga ah Fahad Yaasin Haji Daahir ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah uu ambabaxo magaalada Beledweyne halkaas uu doonayo inuu ka soo helo kursiga xildhibaannimo Master Yaasin oo ah siyaasi saameyn leh ayaa iska soo hormariyay sawir maanta laga soo qaaday isaga oo qoslaya weliba mid gaarsiisan dhoosha dambe waxaa ka dhashay falcelino badan waxaa lagu kala qaybsamay baraha bulshada qof kasta waxa ay la tahay ayuu ku micneeyay jumlad yar oo kooban oo sawirkaasi uu ku lifaaqay in sidaas looga falceliyo sawirkiisa waxaa sabab u ah in ninkani uu ahaa qof aad isku qariya cod iyo muuqba marka kaliya ee la maqlayana ay ahayd isaga oo ka soo dhex hadlaya shakhsiyaad isaga aad u aaminsan una ah afayeen balse maanta wuxuu markii ugu horeysay aqbalay in sawir laga qaado isaga oo ogol ah waana tan sababtay in sheekadiisu ay qabsato baraha bulshada Soomaalida si kasta ha u dhoola cadeeyay su'aasha milyanka jawaab u baahan waxay tahay Fahad ma ka gudbi doonaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasi oo ku horgudban maalinta berita ahna durbadiiba u sii diyaarinaya in aanu Fahad u safrin magaalada Beledweyne قادنا والله وبالله وطلع نمن كان خبا إني نولاد أنا حلال كربا أو كراس تربا قبل لي دواف دومنتاي واي سيكون دعدك نين كان رنت شيء بينا وقرصن والله وبالله وطلع وحنو كل حنية طابت واي وحسمي كرتا أنا قبل كيرانا دقنا كل قد قبيلوين كودو ويجوغا كي بابور كواتو إمادو كي صعدو كي دقن انت بوحوانك قمن كرنا واحشونينا الله كعبسنينا وعلى كعبسك إذنك محايدين ديدة صلى على محايدين ديدة Roble wuxuu amar siiyay saraakiil isaga ku dhinaca oo garoonka Muqdisho jooga iyo wasiirka amniga waxaana dhici karta in maalinta berita ah garoonka rabshadu ay harayso maadaama Fahad qudhiisa uu halkaas ku leeyahay ama ay u joogaan saraakiil isaga daacad u ah in Fahad xildhibaannimo isku soo sharaxo isagoo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa dil loo geystay gabar ka tirsanayd sirdoonka Soomaaliya welina hooyadii dhashay ay hurdada ka go'day ayaa ah wax naxdin leh Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa awlaadda bixiye hamiirada gogasha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid هذا ملا عنق طيريستا أو أنت صاب بلاد هوست هذا كواف دومن سومالي إن نهاية قلقينا نجاش زل على النبي سومالي إن نهاية قلقينا وقدر تعال كوستيزا يجي دوست هذا طلبي علي إلقى الدنيا النوق بصدي مالو كده عين من شرتو أنت هليل مرحومة هو يد طبعا عاوة قرعا أميرة marka ay isha ku dhufato sawirka ninkii ay ku tuhmaysay gabadheeda oo iftiinka ka burqanaya lagu dhaashan karo qosolkiisana uu dhaafay midka caadiga ah waa murug weyn waa cadaalad daro tii ugu darneyd oo ku habsatay qoyska Ikraan Tahliil sida ay hooyada Ikraan dhashay aaminsan tahay inkasta oo baarlamaankan soo socda ay ku jiraan ugu badnaan raggii lala eedeeyay Fahad sida Kulane iyo Yaasin Faray haddana Fahad wuxuu uga duwan yahay inuu isagu ahaa madaxii Nisa markii Ikraan la dilayay haddaba Fahad wuu iska qoslayaa caawa Ikraan hooyadeedna Allah ay qabtaa oo way iska oynaysaa cadaaladuse waa lama huraan